xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo maalmahan badolowgada Soomaaliya ku sugnaa ayaa baanda soo gaaray degmada Balad Xawo waxaana kormeer ay ku tagaan isbitaalka guud ee degmada Balad Xawo Qalil Hospital iyo iskuulka hoose ee ka primary school ay wax ku bartaan caruurta agoomaha iyo kuwa qoysaskooda danyarta yihiin xildhibaan Muuse Cumar iyo xildhibaan Cabdifatax Nuur Mataan ayaa kormeer uu ujeedkiisu ahaa u gurgulida howlaha shaqo ee isbitaalka guud ee degmada Balad Xawo Qalil Hospital iyo baahiyaha ka jira ku sameeyay isbitaalka waxaana ay kulan kula qaateen xafiiska isbitaalka howlwadeenada iyo qaar dhaqaatiirta ka howlgasha halka oo ay kaga dhageysteen waxqabadka isbitaalka iyo baahiyaha ka jira kadibna waxa ay kormeer guud ku sameeyeen qaybaha uu ka kooban yahay isbitaalka iyo bukaanada jifa howlwadeenada isbitaalka ayaa sheegay in baahiyaha jirto ay koow ka tahay in sariiraha isbitaalka ee jiifka ay yihiin kuwa aad u yar qaar badan oo kamid ah sariirihii jiifkana ay hadda burbursan yihiin waxaana sidoo kale ay sheegeen in daawooyinka ay mararka qaar ka go'aan bukaanada taasna ay tahay cilad marar badan ku soo laalaabata guud ahaan waa 9 xabo 9 kiiba ay jaban yihiin waxay u baahan yihiin dayactir joodayaashu waxaa noo taala 50 xabo 20 wixii ka badan waa baaba ayagana oo waxaysan lahayn bacdan la geliyo oo koobarka ah ma laha xildhibaanada dowladda federaalka oo booqday isbitaalka ayaa dhankooda la hadlay guddiga boorka iyo dhaqaatiirta isbitaalka waxaana ay sheegeen in dhankooda ay dowladda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda caafimaadka ay u gudbin doonaan baahiyaha ka jira isbitaalka ayna ka dadaali doonaan in qaybtooda ay helaan deeqaha caafimaad ee uu dalka ka helo dowladaha Soomaaliya taageera Cabdifatax Nuur Mataan waa mudane ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya isbitaalku runtii uu baahan yahay oo aad u badan ataabateen oo kamid ah dhinaca daawada 3 bilood in ka badan inay daawada ay gaarsiin karin inka main surgery iyo general surgery runtii si aad la socotaan wasaaradda caafimaadka anagu waxaan ognahay wasaaradda caafimaadka gobolkan inaysan qaabkii loogu talagalay gobolada kale ay ula macaabilaan aysan ula macaabilin aad baan mudanayaasha ka tirsan baarlamaanka ayaa ugu dambeyntii booqday iskuulka ka primary school oo wax lagu baro caruurta agoomaha iyo kuwa ka dhashay qoysaska danyarta ee aan awoodin inay caruurtooda iskuulada lacagaha geeyaan waxaana macallimiin isxilqaantay ay si lacag la'aan wax ku baraan ardaydaasi waxaase xusid mudan in qaar ardayda ay wax ku bartaan geedad hoostood maadaama qolalka u dhisan iskuulka ay yihiin kuwa yar marka loo fiirsho tirada ardayda oo gaaraysa 300 arday Muuse Cumar waa mudane ka tirsan xildhibaanada dowladda federaalka Soomaaliya oo laga soo doortay gobolka Gedo gaar ahaan degmada Balad Xawo waxaan isku dayi doonaa in xooga saarno sidii iskuulkan deer uu heli lahaa sidii chicken uu heli lahaa oo maaragtay kitchen uu heli lahaa oo meel dadku wax lagu kariyo uu heli lahaa isla markaana ardayda looga caawin lahaa inay buugaag iyo qalimaan ay helaan isla markaana macallimiinta ay helaan mishaaraadkii ay u baahnaayeen arrintaas iyada waan idinka gaarsiin doonaa baarlamaanka iyo dowladaba waxaana codsanaynaa oo idinkana idinku baraarujinaynaa inaad sii wadaan dadaalkiinii macallimiin ahaan aad u dulqaadataan baahida aad ku shaqaynaysaan mishaar la'aanta aad ku shaqaynaysaan ardaydana maxaan ku raadaa ku baraarujin lahaa waxbarashada waa tiirka nolosha inay dadaalaan wax bartaan ay had iyo jeerna maxaan ku raadaay ay qalinka gacanta ku hayaan Maxamed Cabdikariin Macallin TV-ga caalamiga Universal Balad Xawo